madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo waraysi gaar ah siiyey idaacadda VOA ayaa sheegay in heshiiskii ay dowladdiisu dhowaan la gaadhay mucaaradka Jabuuti uu qaboojin doono xiisaddii siyaasadeed ee dalkaasi ka jirtay labadii sannadood ee lasoo dhaafay. madaxweyne Geelle waxa uu waraysigan sidoo kale uga hadlay arrimaha Soomaaliya isagoo shaki ka muujiyey in doorasho ay Soomaaliya ka dhacdo 2016 sababo ay ugu wacan tahay iyadoo ay weli harsan yihiin howlo ay ahayd in la dhammaystiro. madaxweynaha Jabuuti waxa uu waraysigan sidoo kale uga hadlay heshiiskii Soomaaliya iyo Somaliland ay ku gaadheen Jabuuti isagoo rajo ka muujiyey in natiijo fiican ay ka soo bixi doonto wada hadallada labada dhinac u dhexeeya. cabdicasiis xuseen cismaan ayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle khadka telefoonka ee Jabuuti ku waraystay waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahiyo heshiiskii ay dowladdiisu mucaaradka la gaadhay toddobaadkii hore. bismillaahi raxmaani raxiim. horta dhegeystayaasha VOA-da iyo shaqaalaha VOA-da iyo madaxdeedaba waxaan leeyahay sanad wanaagsan. sanadka 2015 ilaahay khayr iyo barako iyo horumar iyo caafimaad baan idin rajeynayaa. ta kalena sida su-aashaada haddii aan usoo noqdo waxaa sida aada sheegtay annaga iyo waxaan jeedaa xisbiga mucaaradka ay ku urureen wadahadal baryahan dambe oo dhan noo socday oo kolbe hakad yaro gelgelayay ayaan saxeixnay maalin dhaweyd. annagu dee aada baan yani usoo dhaweynay oo aan isleenahay waxa uu qaboojinayaa hortaba jawiga siyaasadeed. waxa uu abuurayaa manaakh cusub oo magaranaysaa ay dadku ay ku loolamaan ama ay afkaar isku weydaarsadaan ama ay danaha dalka kol haddii siyaasad meedaan siyaasadeed la iskugu yimiday in laga doodo wixii wadanka yani qolana ay dee hawshii gacmaha ku hayso oo ay wado, qolada kalena ay sheegayso naqdi ku sameynayso ama ay odhanayso yani waan ka horjeednaa sida dadka ilbaxa ahee dimuqraadiyadda ku shaqeeya inaan meedaankaasi aan u gogol xaadhno ayuu ahaa oo dee cadhadii hore iyo wejidadabkii hore iyo waxaa 2 sannadoodna soo haystay sidii aan uga bixi lahayn. iminka waxaan dhignay waxa weeyaan framework, waxaan soo xayndaabnay sida wadahadalku u dhici doono, sida yani nuqdadihii aan ku heshiinay inaan ka wada hadalno, sida ay yani baarlamanka iyo guddiyo iyo isku dhafan oo dee ka kooban labada qolaba inay hawl galaan iminka yani 30 cisho dhexdeeda oo dee yani haddeetole aan dee si cusub siyaasadda aan u guda galno. waa kaa wejiga waa tahay yani sidaan u arkayaan. waa tahay markaas 30 cisho gudahood ayaad ku samaynaysaan heshiis waara oo aad kusoo dhisaysaan guddiyadaasi aad sheegtay. bal guddiyada maxaa ka mid a 30 cisho labadiinu aad rajeynaysa? iyagu ay diideen yaa jira oo yani ay leeyihiin dib ha loo eego horta in la siiyo maqaam la siiyo yani mucaaradka siyaasiga ah oo uu dee yani uunan ahaanin qof ka baxsan systemka oo yani lala sheekaysto, lala hadlo, yani mawaadicda waaweyn ee wadanka kolkay soo food saaraan yani ra'yigooga la qaado, la tixgeliyo. guddida yani kormeerka oo doorashooyinka oo qaabka ay u dhisan tahay ayagu ay si u arkayaan, annaguna aan si kale u arkayno. taasna inaa laga doodo oo la iskugu yimaado meel dadku ay raalli ka wada noqono. waxaa kale oo ka jira xagga yani presska iyo warisgaarsiinta iyo waxaasi inay iyaguna waxyaalo ka arkayaan
xurriyat alqawlka iyo xurriyat yani jaraa'idka iyo waxaasi taasna inaad dib loo eego. sharciyadu way jiraan laakiin waxay leeyihiin waxbay tabanayaan, ay diidan yihiin. meedaanka in lasoo wada dhigo waxaasoo dhan oo laga doodo oo meel la iskugu yimaado weyaan. waa tahay daahir faarax hafayeenka USN wuxuu sheegay in labadiina dhinacaad 30 cisho haysataan ood heshiiskaasi ku gaadhaysaan oo ay ku jirto sidaad sheegtayba maqaamka mucaaradku uu yeelanayo iyo weliba abuuritaanka guddiga madaxa bannaan ee doorashada. marka sideed u qorshaynaysaan idinka ka dowlad ahaan in aad qodobadan oo u muuqda labadiinu inaad ku kala duwantihiin inaad meel dhexe isugu timaadaan ood heshiis uga gaadhaan? qorshayntu waxay ka soo baxaysaa kolka anagu yani dadkii dejiyey shuruucdani ayaan nahay, iyaguna waa dadka naqdiyaya wey. kolkaa dee inaa meel la iskugu yimaadaayey kolka baarlamanka yani ay soo galaan iyagu mucaaradku dee guddi baarlaman oho sharcigu waxa uu dhigayaa in ay sharciga waxaa dejiyay sharci dejinta waxaa le mas-uuliyadaasi waa baarlamanka. in dee guddi parliamentarian oo iyagana ka kooban annagana yani tiro mid ahaatee ah inay wada fadhiistaan dee inay hawsha ay ajendaha samaystaan, ay dee hawl galaan. dadku kol hadduu yani wadan wada joogo oo uu siyaasad wada samaynayo, marna waa la isdiidaa marna waa la heshiiyaa. taasi dee waa iska dabiici weeyaan oo dee maaha yani dagaal yani rasaas la isku haysto ma aha. waxa weeyaan afkaar, waxa weeyaan mawaaqif, waxa weeyaan yani talooyin. inaad dee yani kolkaan de in yani dhowr bilooda aan wada hadlaynay meesha baan iskugu niminay. insha allahu inta hadhena waan dhamayn karayna. waa tahay marka inta hadhee la dhamaystiraya ma dhici karta inay ku jiri karto inaad ka fikiri kartid in mucaaradkaa dowladdaada kusoo dirtidood ay wasiiro dowladdaada ka noqdaan? haddii lagu heshiiyo baan ujeedaa anigu waxba kama qabo. waa tahay marka way furan tahay in ay dowladda ku xubin ka noqon karaan? waxba maaha taasi anigu side waxaan leeyahay yani wadahadalkeena frameka kuma jiro in ma garanaysaa ilan dowladda xukuumadda haddii lasoo galo mucaaradna miyaan lagu noqon karaa? maya. waa inaad dee yani ama maqaamkii mucaaradnimo yaa lagu joogayaayo doorashooyin iyo siyaasadda iyo mashaariicda iyo waxaasaa laga doodi. haddii dee aan isku darsana la yidhaahdana waa rag baa ka heshiiya oo taasna waa la isku darsan karaa, dee dhib male. waa tahay keliya mucaaradka aad heshiiska la gasheen mooyaane waxaa kaloo jira iyaguna qolyo idin diidan oo dalka dibaddiisaba qaarkood ku maqan oo dhowr wadaad baa ka mid a oo wadaadadii aad xidhay dowladdaadu xidhay ka mid a. iyagu heshiiskan way diideen oo waxaa muuqata in heshiiska dadka o dhan aanay wada taageersanayn. dadkoodii de way ku jireen dadkii shirka yiriday ee yani anigu dad iyaga ka mid ah oo yani si caalamiya ku diiday ma maqlin. qofka dibadda ku maqana dee wuxuu ra'yigiisa unbuu dhiiban doonaa, laakiin waxaan isleenahay wixii rag USN ahay inay meesha ku dhan yihiin. waa tahay madaxweyne, sidaan la socono Djibouti waxay ku taallaa meel istaraatiiji ah oo saldhigyo ciidamo dalal kalena ay joogaan. markaad eegto dhinaca siyaasadda in dalku xasiloonaado waxa ay tahay mid macno weyn ugu fadhida dalalka Djibouti xiriirka la leh ama saldhigyada ku leh. ma kula tahay dalalkaasi inay cadaadisin saareen ama ay idinku qanciyeen labadiina dhinac mucaaradkii iyo dowladdaba inaad heshiisaan? wax luga ma ku leeyihin? may kuma yeelan karaano. annagu mar walba ilaa 94 ilaa maanta wixii khalkhalna soo dhex gala ama aan siyaasad ahaan xitaa kolka dee jabhado ay furmaan mar walba annaga unbaa dhexdeeda ka hadalna, annaga unbaa heshiina, annaga unbaa dhamaysta. kii saddexaad weeyaan heshiiskani maanta aan saxeexnay. shisheeye wuxuu nagu soo farageliyay way yarta, annagu ma ogolin mana ogolaan doono. maxaa yeelay wax shisheeye faraha la soo galo oo dhani wuu kharimaa oo adduunka wixii experience aad leedihiin waad garanaysaan inaanay
tallaabo la qaadin. marka 30 cisho ee bilowday rajadaad ka qabtid in wax rasmiya aad wada saxeexdaan intay leegtahay? anigu waan ku kalsoonahay oo waxaan isleeyahay inaan hawsha aan ka gudbi karno oo heshiis gaari karno wixii dee alla og yahay sidamood. waata intaasi bal aan uga gudba dhinacii siyaasadda. dhinaca dhaqaalaha sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadadii ka horreeyba dowladda Djibouti waxay sheegaysay in dhinaca kobca dhaqaalaha marka la eego uu dalku uu soo wanaagsanaanayo oo mashaariic badan iyo maalgashi badan ay dalka ka socdaan, balse dhinaca kale markaad eegto dadka reer Djibouti waxaad moodaa in weli kobacaasi ay dowladdu had iyo jeer sheegayso inaanay dareemin oo saboolnimo weyne ay jirto. marka maxaa macno ay ku fadhidaa madaxweyne in dowladdu ay ku celiso kobcii wuu fiican yahay haddii danyartii weli noloshii ku adag tahay? dadka dee iminka anigu xisaab haddaan galno sanadka iyo kii ka horreeyey sanad waliba inta qof ee ka baxday saboolnimada ee nolol gashay, inta qof ee dhalinyaro ah ee shaqo heshay, inta yani mashaariicdaas socda ka faa'iidaysatay de statistic haddii aad doonayso waa soo wada qorayna. wadan yani Yurub tag, America tag, dad sabool laba waayo, meel walba uu jiraa saboolka, laakiin dadaalku waxa weeyaan in aad hore u dhaqaajiso wadanka, in aad wadankii u furto magaranaysaa ee maalgelinta shisheeyaha, in aad kaabayaasha dhaqaalaha aad magaranaysaa ee aad u hesho yani haddii aanay jirin infrastructure, haddayna jirin cid maal gashan kartaa ma jirto wadanka. waa tahay laakiin anagu yani kolka aan yani wixii IMF iyo World Bank ay saxayaan ka soo qaad magaranaysaa kobaca dhaqaale sanadkani yani 2015 waxaan higsanaynaa inuu 7 gaadho magaran boqolkiiba. taasna dee yani wax cidlo un ka imanaya maaha, wax magaranaysaa ay cidlo ku dhacayana maaha, waa wax dalka faa'iido u ah oo ay muuqato in magaranaysaa dadweynuhuna uu dareemayo kana faa'iidaysanayo. laakiin iyadoo dadaalkaasi madaxweyne uu jira haddana maciishadii weli waa qaali, dakhligii ma badna, dhalinyarada qaarkood shaqalaan badan bay ka cabanayaan. isbedelkii waxay leeyihiin si toos uma dareemayno oo weli baahidii way tahay. bal weydii haddii ay si kale garanayaan. anagu waxaan leenahay wadanku sida uu maanta maalin uu ka fiican yahay ma jira way anaga nala tahay. waa tahay maragna uu jiraa yani oo dee laakiin dadweynaheenu uu aad buu aaminsan yahay wixii yani mushaharka ugu yar 15,000 oo faran ahaa 35 ayaan ka dhignay. maantana yani dhibaatooyinku meel walba way jiraan oo wadano 12% sheega inay kobocoog yahay, faqriguna uu 40 iyo sare u dhaafay way jiraan ma kule, laakiin dadaalku inaanu joogsanin wey. waa tahay intaanan arrimaha Soomaaliya wax kaa weydiin, sanadkan imika cusub ee 2015 maxaa Djibouti idinka idiin qorshaysan? waxaan maqlay in bisha Oktoobar haddii baydmo uu furmi doono tareenka cusub ee Djibouti ee isku xiraya Ethiopia. marka bal iiga sheekay mashruucaasi kharashka ku baxay iyo macnahaan wuxuu uga dhigan yahay labada dal. wadanka Ethiopia yani oo keliya kolkaad eegto 90 malyan oo qof baa ku nool. income yani importigo iyo exportigooguna aad buu u ballaadhay. dee wax yani track lagu shaqayn karo way dhaaftay, arrinkaas wuu dhaafay. Ethiopia yani iyo anaga xiriirka dhaqaale ee weyn baa naga dhexeeya. yani mashruuca tareenku wuxuu hawlgeli doonaa October hadduunan weliba bil ama 2 ka soo horeynin. ku kale ayaa waqooyiga tajooro ka kici doona isaguna oo aan dhawaan saxeexi doona oo isagu
ka howlgeli doona exportiga waqooyiga Ethiopia iyo magaranaysa importgooga oo yani marsada cusub ee Tajoora aan ka wadno iyaduna dhammaan doonto sanadkan 2015 dhamaadkiisa ayaa iyo wadada xagga meel balxal la yiraahdo xuduudda Ethiopia gaari doona waxa aad ogtahay in airportka magaalada Djibouti hadii tole congested yahay magaaladii bartankeedana uu ku dhacay kolka mid baan qorsheysanahay oo bishan dhamaadkeega inaan dhagaxeeda dhigno aan rajeynayna oo isla magaalada Djibouti marka airport xageed dhagaxa ku dhigaysaan isla Djibouti gudaheeda magaalada gudaheeda 25 kilo baan ayaan magaalada ka bixinaynaa hadii alla yiraahdo goormu dhamaanay marka 2 sano bad waa inuu ku dhamaado waa tahay waa hagaag port cusub maxaan ku yiraahdaa refinery aan qolo reer Singapore iyagana aan la saxeexnay baa jiro isaguna 2015 inuu bilaabmo dhismihiisu aan rajeynayna mashaariic fara badan baan yaan gacanta ku haynaa oo aan isleenahay sanadaha soo socda way wax weyn bay ka tari doonaan dhaqaalaha insha Allah waa tahay